Assalaamu calaykum. Maanta waxaan baranaynaa sheeko cusub. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa ninkii qaylada badnaa. Sheekada markasan ay noogu bilaabanaysaa. Ninkan oo lagu magacaabi jiray ninkii qaylada badnaa wuxuu ahaa nin aad u qaylo badan. Mithaal ahaan, haddii uu ku akhrin lahaa sheekadan hadda aan ku akhrinayo, dhagaha ayaa ku xanuuni lahaa sida uu qaylinayo. Haddii uu u qayliyana qayladiis meesha ugu dambaysa ninkii qaylada badnaa, hadalkiisa waxaa laga soo maqli lahaa magaalooyinka kale. Mithaal ahaan, haddii qofka uu hindhiso, waxaa maqli karta haddii qolka ku xiga aad joogto. Laakiin ninkan haddii uu hindhiso, waxaa laga soo maqli jiray magaalooyin iyo waddanka kale ugu xiga waddanka uu ku nool yahay. Xataa dadka masaajidka salaada ku dukanaya way boodi jireen naxdin darteed qayladiisa siday u dheertahay. Haddaba sheekadan waxay ku bilaabanaysaa ninkii qaylada badnaa oo hurdaaya sariirtiisa ku jiifa, oo gurigiisa dhexdiisa dhex jiifa, gurigiisa oo ku dheganaa masaajidka. Ninkan lagu magacaabi jiray ninkii qaylada badnaa ayaa quurinayay. Sidaad qiyaasi kartid, markii uu quuriyo ninkan, xaafadda oo dhan ayuu soo kicin jiray. Wuxuu ekaa sida raxan oo maroodiyaal ah oo quurinaayo oo kale, siday u dheertahay quurintiisa. Kadib ayaa waxaa kacay hal mar oo yeeray saacaddiisa oo soo kicin jirtay subaxdii. Laakiin saacaddaas oo soo kicin jirtay ninkii qaylada badnaa ma u eka ama lamid ma aha saacadaha kale oo dadka isticmaalaan oo hurdada ka soo kacaya. Markii ay yeerto waxay u qaylin jirtay sida baabuurka dabdamiska oo kale. Kadib ayaa ninkii qaylada badnaa hurdada ka soo kacay. Waxaa sidoo kale soo kacay dadkii deganaa xaafaddii uu ku noolaa ninkii qaylada badnaa, maadaama ay u yeertay saacaddiisa si aan caadi ahayn. Subaxii ayaa wuxuu go'aansaday ninkii qaylada badnaa inuu alaab suuqa ka soo iibsado. Gurigiis ayuu ka soo baxay asagoo albaabkiisa xiraya. Albaabkiisa markuu xiray hal mar waxaa yeertay jug aad u weyn. Bow! 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 Hal mar ayaa waxaa gelgeshay albaabkii. Gurigii oo dhanna waa gelgeshay. Xaafaddii oo dhanna waa gelgelatay. Waddankii oo dhanna waa gelgeshay. Xataa shimbir cirka duulaysay waa gelgelatay oo dhulka ayay ku soo dhacday. Kadib ayaa ninkii qaylada badnaa wuxuu aaday suuqii. Joog! 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 Asagoo oo lugtiisa ay saas u yeerayso. Kadib ayaa wuxuu galay foornada rootiga. Gaw! Ayaa hal mar waxaa yeeray albaabkii markii uu furay. Kadibna gawax! 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 ayaa ka yeertay markii albaabkii uu xiray. Markaas ayaa wuxuu ku qayliyey, waxaan rabaa 5 xabo oo rooti ah. Cod oo sida guuxa oo kale ay ku guuxay ninkii qaylada badnaa. Asagoo la hadlaya nin lagu magacaabi jiray Axmed Rooti oo ahaa ninka foornada iibinayay. Axmed Rooti ayaa gelgeshay asagoo dhan. Kadib ayaa 5tii rooti asagoo gelgelinaya oo rootiga xataa uu ka dhaxayo ayuu ka iibiyey. Kadib ninkii qaylada badnaa wuxuu aaday kawaanka hilibka si hilib u soo iibsado. Gaw! 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 ayuu macnaha samaynayay codka oo lugtiisa. Kadib ayaa wuxuu galay meeshii kawaanka hilibka. Gaw! Hal mar waxaa yeeray albaabkii. Haddana gawax! ayaa waxaa yeeray albaabkii markii uu xiray. Markaasaa wuxuu ku qayliyey ninkii qaylada badnaa ama uu ku guuxay, 1 kiilo oo hilib ayaan u baahanahay. Asagoo ku qaylinaya nin loo magacaabi jiray Xaaji Hilib oo ka shaqaynayay kawaanka hilibka. Xaaji Hilib ayaa aad iyo aad asaga dhan u gariiray. Kadibna 1 kiilo oo hilib ah ayuu u soo dhiibay asagoo gariiraya hilibkii xataa uu ka dhacayo. Waxyar kadib ayaa Xaaji ninkii hilibka iibinaya oo lagu magacaabi jiray Xaaji Hilib iyo Axmed Rooti waddada ku kulmeen. Markaas ayaa waxay yiraahdeen, arrintan arrin macquul ma aha. Ninkan dhagaha ayuu na bujinayaa marka kale. Wallaahi waa runta ayuu dhahay Axmed Rooti. Xaaji Hilib iyo Axmed Rooti aad iyo aad ay arrintii ugu sheekaysteen. Markaasaa Axmed Rooti wuxuu dhahay asagoo si sir ah dhagtiisa ugu sheegaya, aniga aqaansan yeeli doono. Kadib Xaaji Hilib ayaa wuxuu dhahay, waa ku aqaana adiga arrintan inaad wax ka qaban doonto. Maalintii ku xigtay ayaa ninkii qaylada badnaa suuq ayuu soo aaday. Gaw! 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 asagoo socodkiisa qayladiisa meel laga maqlayo. Kadib ayaa wuxuu galay foornada rootiga oo uu ku jiray Axmed Rooti. Markaasuu yiri, 5 xabo oo rooti ayaan u baahanahay. Asagoo guuxaya ayuu saas yiri. Axmed Rooti wuxuu yiri, waa ka xumahay. Maxaa tiri? Asagoo iska dhigaya inuusan maqlin. Ninkii qaylada badnaa ayaa ku guuxay, waxaan u baahanahay 5 xabo rooti oo codkiisa ka sii daray.
axmed rooti ayaa yidhi oo waa ka xumahay asagoo oo dhegtiisa oo gacanta saara oo iska dhigaya inuusan maqlin wuxuu yidhi xoogaa waxaad korba u qaylin kartaa hadalkaaga ma fahmin maxaa dhahday kadib ninkii qaylo badan ayaa wuxuu yidhi waxaan u baahanahay 5 xabo oo rooti ah saas ayuu ku guuxay ninkii qaylada badnaa axmed rooti ayaa ku jawaabay wallaahi ma ogi waxaad sheegayso maku maqlaayay ninkii qaylada badnaa ayaa iska dhaqaaqay foornada rootigan iskaga baxay kadib xaaji qayli ama ninkii qaylada badnaa wuxuu galay kawaanka hilibka oo uu dhex joogay xaaji hilib markaasuu yidhi 1 kiilo oo hilib ari ayaan u baahanahay asagoo guuxaya xaaji hilib ayaa wuxuu iska dhigay in uusan maqlin oo kale oo gees kale uu iskaga jeestay ninkii qaylada badnaa ayaa yidhi waxaan u baahanahay 1 kiilo oo hilib ah ninkii xaaji hilib ayaa wuxuu yidhi aniga ma ila hadashay maxaa tiri ninkii qaylada badnaa ayaa wuxuu yidhi waxaan u baahanahay 1 kiilo oo hilib ari ah asagoo sida gugaca oo kale u qayliyey xaaji hilib ayaa wuxuu dhahay waa ka xumahay maxaa tiri kadib xaaji qayli ayaa iska baxay guriga ayuuna iska aaday sariirtiisa ayuuna iska seexday asagoo baahan maalintii ku xigtay ayaa sidii oo kale ayuu sameeyey foornada rooti ayuu aaday asagoo ku guuxaya 5 xabo oo rooti ayaan u baahanahay axmed rooti ayaa wuxuu yidhi maxaa dhahday ninkii qaylo badnaa ayaa mar kale ku celiyey 5 xabo oo rooti kadib waa istaagay waa fikiray kadib ayaa wuxuu yidhi 5 xabo oo rooti ah ma isiin kartaa adigoo mahadsan kadib axmed rooti ayaa dhoola cadeeyey wuxuu yidhi haa dabcan waa ku siin karaa kadib ninkii qaylada badnaa ayaa wuxuu galay kawaankii hilibka meesha hilibka lagu iibinayay kadib ayaa wuxuu ku guuxay 1 kiilo oo hilib lo ayaan u baahanahay xaaji hilib ayaa wuxuu yidhi aniga ma ila hadashay ninkii qaylada badnaa ayaa wuxuu ku yidhi haa adiga ayaan kula hadlay asagoo codkiisa meeshii ugu dambaysay ku qaylinaya waxaan ku iri waxaan u baahanahay kadib waa istaagay waa fikiray kadib ayaa wuxuu yidhi waxaan u baahanahay 1 kiilo oo hilib lo ah adigoo mahadsan ma isiin kartaa xaaji hilib ayaa dhoola cadeeyey wuxuu ku yidhi haa waa ku siin karaa kadib ninkii qaylada badnaa ayaa wuxuu soo qaatay hilibkiisa iyo rootigiisa gurigiis ayuuna aaday gaaw 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 asagoo lugtiis qayladaas ku samaynaya kadib waa istaagay waana fikiray ma ogtahay wuxuu sameeyey kadib ayaa wuxuu bilaabay inuu si tartiib ah farihiis ugu socdo arrintaasoo weligiisa uusan baroobeynin inuu tartiib u socdo ninkii qaylada badnaa arrintaas aad ayuu u jeclaaday wuxuu gartay inay tahay si tartiib in loo socdo wax fiican inay tahay kadib ayaa gurigiisu yimid albaabka ayuu si tartiib ah u furay albaabkii markii tartiiba u furmay ayaa wuxuu naftiisa ku yidhi ilaan tartiib albaabka in loo furo aad ayay u fiican tahay haddana albaabkii ayuu si tartiib ah u xiray si tartiib ah oo aad u degan tartiib iyo deganaanshu waa wax aan loogu baran oo aan lagu aqoon ninkii qaylada badnaa arrintaas aad ayuu u jeclaaday ninkii qaylada badnaa mase og tahay waxay dhacay maalintaas waxay ka dambeeyey ninkii qaylada badnaa waa joojiyey qaylo inuu xoog u socdo iyo jugjug inuu sameeyo sidoo kale dadkii deganaa xaafadiisa oo dhan aad ay u jeclaadeen axmed rooti iyo xaaji hilib aad iyo aad ay ugu farxeen arrintaas mase og tahay wax kale ninkii qaylada badnaa wuxuu bilaabay markii dadku ula hadlaayo dhegta inuu wax ugu sheego oo tartiib uula hadlo qaylo iska daayay sheekadii ninkii qaylada badnaa halkaas ayay noogu eg tahay laakiin caruurey sheekadan maxaa ku barateen sheekadan waxaan ku baranaynaa muhiimadda ay leedahay dadka in la baraarujiyo oo shib aan laga dhihin haddii ay samaynayaan waxyaalo qalad ah sababtoo ah mararka qaar dadka ayagoo qaldan ma is oga inay qaldan yihiin ama waxa ay samaynayaan dadka inay dhibsanayaan ma oga oo dhaqankooda uu xun yahay laakiin waxaa muhiim ah dadka in si sir ah oo meel private ah loola hadlo oo aanan dadka hortooda lagu caybaynin alimaam ashaafici oo ahaa qof aad u xikmad badan ilaahay u naxariistee ayaa wuxuu yidhi haddii aad si tartiib ah oo si hoose oo aniga keligayga ah aad wax iigu sheegto oo aad ila hadasho waad i waanisay waxaana hadal fiican ayaad ii sheegtay oo aan yeeli doono laakiin dadka hortooda haddaad wax iigu sheegto dadkao dhan oo maqlaaya
waxay la mid tahay inaad i fadeexaysay oo aad i ceebaysay. marka waxaa muhiim ah dadka haddii ay qaldan yihiin ama dhaqan xun ay leeyihiin inaad si tartiib ah meel dadka aysan joogin oo si hoos ah aad u waanisid oo dadka hortooda aadan ku ceebaynin oo ku fadeexaynin. caruuray sheekadan halkan ayay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.